kuwan waa koox dhalinyaro ah uma imaan xeebta dalxiis waxay sugayaan doon u qaada safar masaafo oo badda ah kaasoo khatartiisa leh. Gabadha iyo wiilka iswata shiiqa iyo marqaatiyaal ayaa ku kulmaya doonta dusheeda sidaan oo kale. Marka ay socdaan waqti la mid ah ka bariga ay u socdaan dadka masaafada ah ayaa doontu baroosin ka dhigataa. Haatan waxaa dhacaya mehrintii. Cali iyo Xaliima oo horay safar masaafo ah badda ugu galay ayaan ka codsanay inaan sheekadan ka samayno annagoo u ballan qaadnay inaanan wajiyadooda baahi doonin si aan ugu kuur galno safarada masaafo ee halista badan. Sax ahaashaha masaafada kuma saabsana sheekadani. Waxaan la socnaa in khilaaf badani ka taagan yahay, laakiin waxaan muujinaynaa dhibka lagala kulmo wadada loo maro. Maalmaha Sabtida iyo Khamiista waa maalmaha ugu badan oo dadka doonleyda ay noo sheegeen in doomo sida dad masaafo ah ay ka qaadaan xeebta. Inta aan joognay waxaan kula kulannay dooni u safraysa badda gudaheeda oo sida dad masaafo ah. Kadib markii ay doontu nagu soo celisay xeebta, waxaan weydiinay Xaliimo oo ah gabadha meherka qarsoon hore loogu sameeyay gudaha badda sababta ay waalidkeed ugala dhuumatay ninka ay qarsatay iyo qatartay u bareertay ee badda waxa ku kalifay. sababta keenta waxa waaye horta koow inaan isku fahanay aniga sidina meeshan barnaamijkeena ka dhameysano. marka labaad waxa waaye dabiriga iska dhibaato batay xaalad amni darteeda meeshan ku doorbidnina barnaamijkeena ku dhameysano. hadda yani waxaad moodaa in guurka iyo meherka Brian dambe inuu noqday isugu faan xilay isugu faan iyo xoolo isugu faan. marka tabarta ninkayga markaan qiimeeyay ama qofkaan jeclahan waan awoodi kari waayay inaan reerka iyo horgeeyo. ما أنا قد كم قنعين هذا أنا كل إسكو فهني ماشي إن أنا أدنى نسكج على السنة وأنا صار مثلا هذا الحمد لله إسكو فرح سنة. نين كم إذا رجع دوما هذا الحس كل شقة يستحب تليده أو مجلس سنة إيش كجاب صدي أي يجي شيء كيس إذا يكون قرطان ضد كرب سفر كمسافة بدة يوح يكون عشان. والله والله كلنا ونوي مدين أو مالموضة الله كل ما يعني كنا في الشخصية دي ده markay badda u baahan yihiin ma iyaga soo diyaar garoobay oo maalin ka hor inta ku imaadaan ku ballansadaan alla leeyahay marka xirfadda badda ay kala tashayaan waqtigii badda macnaa la bixi karo. wallahi baddan iyo badana markii hore ma la aadi jirin iyo cabsi darteed inay tahay wadooyinka laga baqaayo baabuurtan iyo wadadii oo rafa bacaad isbaarooyinka iyo wadada baabuurta ku batay lacag qaaliyin saas darteed doomaha u lacag yaraada saas darteed saas ay riskiga dadku ku bariirayaan. wallahi hadba saa u leeshiin karto waa meesha waa suuq macnaa هاد بس أقول شيء كرتوا لما بقول واجرتها بقول سديتهم واجرتها بقول كنتم واجرتها هاد بقف كسيك وقطن شيء كتوا بالعادة سومالي اسفهم ما لو شغله وحالو كلا كرتها دون ليدي متمر للشهور أيان يقول دون ليدي بناكم بعايا والله الله يا أركي سامت كلي وتجايا والله الله يا دتي ورئيسا اللي نهاية أرنت أسكور ما مقعدين هذا كورم السمايسين بالكور ما محبط اللي قالوا كل مكرر اللي بتوين كذا بدأ حالة هذا بالكوا حاجة ورم علي ترى مركب بدن أيوب بدأ وآذي إنه كسر مهر صدق جبر isagoona ka warramay sida ugu qanciyo shiiqa iyo marqaatiyaasha inay u raacaan badda. marka hore sidii aad barniga ugu wada lahayd oo kala ugu sheekay oo tafatire shiiqadii oo ku qanacay wadada haduu ku qanacay shiiqada u raadsay wax mashaakil ma jiro haduu marka ku yeelay sheedada bariisooda taaba oo ku bariisay ana badda meher u aadan wax maanta bilowdan ma wax roo jiro marka hore aad bad ay soo inta xadirtaa oo dabaasha iska faantiin adigoo dabal aqaan badda iska maado وارد ولا ولا ظروف جرا وقول واحد كستو وحا كاين سبب وارد لا وداغن وحنا انا ارضي wax barat barnaamijkii soo kulmay saarnaa marka ilaa 5 jeer oo aad badan dadna waa raacay oo aadan xeebtan u dhawaan ilaa xeebtan leedahay kulli ka baxay inta badan dadna raacay marna aniga aaday wadaniga aaday oo bari gooba ka marmaaba 5 jeer adiga ma ku galay in ka badan dadna raacay oo bari gooba laga marmay xilligan. doonleydu waxay ka digeen safarada dhaadheer ee loo aado masaafada badda oo ku soo batay baryihii dambe taasoo ay sheegeen inay halis badan tahay dad badan oo dabaal aqoonna ay ku biimeeyaan naftooda inay masaafo u aadaan badda. wallahi waxa waa badniyo badna qatarteed ay leedahay qofkaan dabaal aqoonna badda inay u bareerto wallahi waa laga wanaag badan yahay xaqiiqada markii laga hadlo. badda waxaa lagu xisaabtamaa bahal la GPS GPRS ay sanaa macnaa inta mayl oo macnaa oo socoto maylki waa hal kilomitir iyo bar waay maylkiisi saas darteed loogu dhifaas 100 kilomitir aan marka oo u dhiganto 47 mayl iyo bar. Maxamed Ciise Koona Universal TV Muqdisho.